magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida waxa maanta soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyay beeldaaje cali beeldaaje salad oo kamid ah beeldaajiyaasha ummadda Soomaaliyeed magaalada Jigjiga duleedkeeda ayaa waxa beeldaajiyaha ku soo dhaweeyay odayaasha dhaqanka garaado iyo sidoo kale waxgarad garaad kulmiye oo kamid ah odayaashii dhaqanka ee maanta magaalada Jigjiga ku soo dhaweeyay beeldaajiyaha ayaa waxa halkaasi ka soo jeediyay hadallo ku qotomay sida ay ugu faraxsan yihiin booqashada uu maanta ugu yimid beeldaajiyuhu bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah صلى الله عليه وسلم وعن هذه ugu faraxsanahay beeldaaje cali beeldaaje salaad oo abtoonahay inuu maanta uu nagu soo booqdo caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga beeldaaje waxaan ku leenahay soo dhawow waa dalkaagii iyo dadkaagii gacmo furan ku soo dhawow waa ku soo dhaweynaynaa shacab iyo dawlad waa ku soo dhaweynaynaa dalkaagii baad ka timid dalkaagii baad u timid aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa hadallada iyo way noo dambeyn doonaan iyo wada hadallada iyo shirarka iyo soo dhaweyntu beeldaaje waxaan leenahay soo dhawow intaasi kadib beeldaajiyaha ayaa waxaa loo soo galbiyey gudaha magaalada Jigjiga isagoona kulan ballaaran kula qaatay odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale waxgaradka magaalada Jigjiga beeldaaje cali beeldaaje salaad oo isna ka mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ee loogu sameeyay maanta magaalada Jigjiga ayaa waxaa hadalladiisa ka mid ahaa waxaa farxad weyn ii ah inaan maanta intaan oo abtiyaashay ah aan waqti la qaato run ahaantii oo farxad aan la soo koobi karin waxaa kale oo aan aad uga mahadnaqayaa abtiyaashay sida qiimaha badan ay ii soo dhaweeyeen oo ay meelo fog iigu yimaadeen iina soo galbiyeen waxaa kale oo aan idinka mahad celinayaa abtiyaal xalfadan aadka u ballaaran oo aad iigu soo dhaweynaysaan waxaan idin leeyahay abtiyaal Allah idinka abaalmariyo waxaad tihiin abtiyaal jira oo wiil aad abti u tihiin agtiina ku dheeshoon maayo waxaa kaloo aan rabaa inaan halkan si gaar ah uga mahad celiyo abtigay garaad kulmiye garaad maxamed garaad bool garaad wiilwaal oo run ahaantii abti isoo garab istaagay xalfadan qiimaha badan leh iyo soo dhaweynteeda qayb weyn ka lahaa waad mahadsan tahay abti allaha ku xafido aakhiriya adduunba run ahaantii waa runtiinoo waxaan imid dalkaygii waxaan imid meeshii xudunteedu ay ku aasan tahay magaalada Jigjiga abtiyaashay ayaan dhex imi waad ogsoontihiin oo abtiyaashay waa dadka ugu magaca dheer geyiga Soomaalida ahaantii ma ahan garaadku mid dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kaliya u ah beelaha uu yahay way ballaaran tahay Jubbaland iyo Soomaalida Kenya degta intaba wuxuu u yahay maaragtay garaadkii waxaad ogsoontihiin annaga haddaanu nahay reer Puntland iyo reer Soomaaliyaba markuu dhib nagu dhaco inuu garaadku aad nooga damqado uu noo yimaado waxaad u dambeysay arrintii ka dhacday gobolka Sool inay ahayd baan jeclahay buuhooda agteeda oo run ahaantii dad walaalo ah beelo walaalo ah isku dagaaleen ninka dhexda u xirtay oo run ahaantii meeshii yimi oo gurmad keenay oo kala dhex galay oo weliba magtii si u raadin lahaa uu galay waa abtigay garaad kulmiye waxaan leenahay abti ilaahay ha kaa abaalmariyo run ahaantii aniga haddaa igu ogeedeen gobolka bari iyo Puntland iyo Soomaaliya maanta waxaan u soo tallaabay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo mar labaad la igu shubay abtigay garaad kulmiye marka cidii isku kay dheeraynayso ogaaday intuu abtigay garaad u yahay inaan u ahay inaan ku koobneen Puntland marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaana marti sharaftii ka soo qayb gashay kulanku halkaasi ka soo jeediyeen hadallo tilmaamayay sida ay ugu faraxsan yihiin booqashada uu maanta ugu yimid beeldaajiyaha magaalada Jigjiga ugaas Cabdullaahi iyo ugaas Faaraxna waxaan leeyahay wiilkii kale abtiga u ahayn beeldaajihiisii baanu tagnay Carmo meel la yiraahdo ugaas xiiray ugaas la yiraahdo reer Jubbaland ayaa wuxuu weydiiyay waxaynu dhaxal lahayn awowgeen ka tagay idinku idinaag yaalaayay nimayo ma jeerteen iska keen madaxweynihii xilligaa joogay Cabdiweli gaas buu ahaa awowgiin tusbax buu ka tagay wiil tusbaxiina wakaas tusbaxii marka waa soo qaadanay waxay naga maqan wax dhulka nagaga maqan ma jiro waxaan dhaxal lahayn tusbax buu soo qaadanay
intaas waa kaftan. abtiyadaa baa kusoo dhaweynaya, ehelkaa baa kusoo dhaweynaya, deegaankii soomaalida oo dhan baa kusoo dhaweynaya. waxaan ku leenahay soo dhawow dadkaagii iyo dalkaagii baad u timid, jigjigana kusoo dhawow. ehelka iyo abtiyada iyo adeerka iyo abtiga wiilka aad u tahay isaguna cabdinaasir wakiilka wabarka adigana abtiba u tahay isaga haddii abti lagu yahay. intaba waxaan leenahay jazaakum allah khayr, cimrigiina iyo caafimaadkiina allah inoo dheereeyo, miisaanka xasanaadkaana allah idinku daro. dhalinyaradii reerka ee isqabanqaabisay ee soo dhaweysay beeldaajahana iyagana waxaan leeyahay meeshaad ka soo saarteen allah tuka badan idin geliyo, kalgacalka iyo maxabada iyo ehelnimada aad tusteen. waa xaflad soo dhaweyn ah, hadal badan uma baahna. waxaanu soo dhaweyneynaa beeldaaje cali beeldaaje salaad oo inooga yimid deegaankeennan labaad ee Puntland, yimidna deegaankiisii labaad isaguna. waxaan ku leenahay ku soo dhawow magaalada Jigjiga, ku soo dhawow deegaankii Soomaalida, ku soo dhawow abtiyaasha. anuu xagga kalaan marayaa oo xagga adeerkaan marayaa anuu xaggaasaan ahay insha allah. abtiyaashay oo garaadku hormood ka yahayna waan u mahadnaqayaa. waxaan leeyahay abti beeldaajiye soo dhawow. run ahaantii ilaahay jalla wacalaa abtinimada nasiib buu ilaahay ku bixiyaa. ilaahay wuxuu ku siiyey nasiib baan ku leeyahay, dad abtinimo jecel oo ubadkooda jecel ayuu ilaahay ku siiyey. marka abti waxaan ku leenahay soo dhawow, madaxa ayaan kugu sideynaa. waana ku faraxsannahay ilmahanagana soo booqday oon maanta ma garanaysaa ilaahay jalla wacalaa goobjoog naga yeelay. marka anoo ku hadlaya afka ganacsatada waxaan leeyahay abti 100% waan kusoo dhaweynaa, waan ku jecelahay sidaan ubadkaan abtiga u nahay anuga jecelahay. beeldaaje kusoo dhawow, dadkaaga iyo dalkaaga kusoo dhawow. kusoo dhawow magaalada Jigjiga, caasimadda dowladdeegaanka Soomaalida. Jigjiga run ahaantii garaadku hormuud u yahay iyo guud ahaan beelooyinta halkan degan taariikh bay u leeyihiin soo dhaweynta, in dadka Soomaaliyeed guud ahaan ay soo dhaweeyaan oo lagu soo hirto. mid maanta bilaabanaysa ma aha, waa mid ay dhaxal u leeyihiin sida taariikhda Soomaalida ku qoran oo cad. marka kusoo dhawow magaaladaada Jigjiga. magaalada Jigjiga dad badan oo Soomaaliyeed oo geeska Afrika magaca ku lahaa culimada waa magaalada wax ku barteen. taa marka dadka halkan degan ee asal iyo faraca u leh ayaa marqaatiga oo soo dhaweyn jiray. culimo badan oo waaweyn, kuwa geeriyooday iyo kuwa hadda nool ayaa warbixintaas taariikhda qoray. marka magaalada kusoo dhawow, waa magaalada halganka waad og tahay. dadka Soomaalida oo dhan oo xurnimo u dirarka waa magaaladii halkan asaaska u ahayd. kusoo dhawow. cabdiraxmaan axmed warbal honkebel TV magaalada Jigjiga.